kulanti wacan daawadayaal ku soo dhowaada macluumaad ku saabsan magaalada Wuhan ee dalka China. Ha yeeshee magaaladan waxa saameeyay coronavirus, laakiin mawduucana waxaanu ku eegaynaa dhinacyada horumarka iyo magaaladan saameynta ay ku leedahay guud ahaan dalka China iyo daafaha dunida. Aanu ku bilowna mawduucana magaalada Wuhan waxa xilligan ay tahay caasimad si xooli ah u fidaysa kuna taal bartamaha dalka China, dhacdana gobolka Hubei, waana magaalo ganacsi waxaana kala qaybiya webiyada Yangtze iyo Han. Waxay ka kooban tahay 3 degmo. Wuhan waa magaalada ugu dadka badan ee ku taala bartamaha dalka China, waxaana lagu qiyaasaa 11 milyan oo ruux inay ku nool yihiin, waana tirada dadka ku nool dalka Sweden guud ahaan. Waxaa ku yaala warshado wax soo saar iyo shirkado waaweyn. sanadihii dambe kaalmaha hore waxay ka gashay wax soo saarka dhinaca tiknoolajiyadda. shirkadaha ku yaala waxaa ka mid ah shirkadda Foxconn iyo shirkadda Apple oo xarumo waaweyn ku leh magaaladan, iyadoo sidoo kale ay shirkado waaweyn oo reer galbeed ah ay xarumo ku leeyihiin magaalada Wuhan. wax soo saarka gudaha magaalada Wuhan sanadkii 2018 waxay soo xareysay adduun lacageed oo gaaraya 1.48 trilyan oo ah lacagta yuan, ona dhiganta 288 bilyan. waa wax soo saarka guud sanadkii tagay 2019 ee dalka Kenya oo gaarayay 99.246 milyan. magaalada waxaa loogu yeeraa Chicago of China ama Chicago China, sababtuna waxay tahay waa magaalo isku socodkeedu uu badan yahay kuna yaalaan wadooyin gaadiid oo casri ah. 10kii sano ee ugu dambeysay xawaaraha gaadiidka kala duwan ee magaalada isaga kala goosha ayaa aad u kordhaysay, taas oo keentay in magaalada loo kala qaybiyo waqooyi iyo koonfur oo isku xiraysa Wuhan ilaa Guangzhou, halka jihooyinka bari iyo galbeed ay isku xiraan magaalooyinka Shanghai, Wuhan iyo Chengdu. sanadkii 2016 garoonka caalamiga ah ee Wuhan Tianhai waxaa isaga kala gooshay in ka badan 20 milyan oo rakaab, kuwaas oo u kala jeesay daafaha dunida. xilliga xagaaga magaaladan waxay gaartaa 40 digrii centigrade, halka bilaha June, July iyo August dadka looga dego heer kulka oo meel sare gaaro. waxaa loo sheegaa in kuleelka ay ka dheeraadaan oo ay xagaa baxaan. xilliyada guga iyo dayrta dalxiisayaasha waxay tagaan goobaha taariikhiga ah ee ku yaala magaaladan sida Pagoda, waxay xarun diimeed u tahay dadka aaminsan Buddhistaha. Yellow Crane Tower waa xarun dhaqameed oo taariikhi ah oo u ah dadka Jeenaha. Wuhan waxaa ku yaala macadka Giwan, kaas oo lagu qiyaaso inuu jiro 350 sano, waxaana la sheegaa in lagu cibaadeysan jiray xilligii boqortooyada Qing. waxaa kale oo ku yaala madxafka ugu weyn gobolka. Wuhan waxaa ka dhisan 3 xarun oo ah xarumaha horumarinta qaranka. waxaa kale oo ku yaala 4 goobood oo cilmiga iyo tiknoolajiyadda, dirjinooyin lagu nasto, iyo in ka badan 350 xarumo cilmi baaris, 1656 ganacsi oo soo koraya. sidoo kale waxaa ka howlgala 500 oo shirkadood oo caalami ah. Wuhan waxay ka faa'iideysatay heshiisyo ganacsi iyo maalgashi oo dhex maray dalalka China iyo Canada. heshiisyadaas waxaa ka mid ah heshiiskii 2005 oo ah Air Service Agreement, 2007 Canada iyo China Agreement for Scientific and Technological Cooperation, Future for Gene Investment Promotion and Protection Agreement. Wuhan waa goobta saddexaad ee dhanka waxbarashada iyo cilmiga guud ahaan dalka China, waana halka ugu badan ee ku sugan yihiin ardayda diyaarisa heerka koowaad ee shahaadada jaamacadda. Soomaalida ugu badan ee ardayda ah ee tagta ayaa la sheegaa inay diyaariyaan culuumta caafimaadka iyo injineeriyada. badka ay ku fadhiso ayaa lagu sheegaa 8 milyan. luqadda ama lahjadda ay ku hadlaanna waxaa la yiraahdaa Mandarin. Wuhan magaaladan waxyaabaha ay soo saarto waxay u dhoofisaa dalal ay ka mid yihiin Mareykanka, Koonfurta Korea, Holland, India, Germany, Japan, UK, Singapore iyo Brazil. guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa macluumaadkii koobnaa ee horumarka ay sameysay magaalada Wuhan
oo uu saameyn ku yeeshay cudurka coronavirus. Mawduucan kan xiga intaan dib ugu kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.